saddexdan waxyaalood waxay kuu sahlaysaa aniga iyo adigaba inaan barano mid kastana tusaale saddexaan ka bixinaynaa si aad u fahanto number 1 inaad fahanto waxa waaye in dadku interest ay noqdaan waa wax la barto waa inaad interest garayso dadka lecture-kooda ama dadku ay lecture-kaaga interest garayaan waa wax la barto saddex qaybood baan ka hadli doonaa marka la gaaro inaad dadka kala communicate garayso ama kala hadasho adduunka ama xaaladda ama cimilada marka ay ku jiraan waa wax muhiim ah iyadana aan saddex waxyaalood ka sharxi doona tan ugu dambaysa cidda aad la hadlayso inaad reactivate garayso ama ay activated yihiin oo ay kula socdaan waa wax speaker-ka ku xiran ama qofka hadlaaya ku xiran aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiiso dadka kale siduu u caawiyo subscribe our channel-keena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال وأنا السلام يا ملك السود أدون كتشوكتان ولكن فرحان براروجية وحن هراء هذا اللي قيبه أي أهد براكتيس كا أما قفك إنه سكود يو تجابيو مركو دات كالله الله إنه سندقها كلا هلين كلي قلبي قاضي وطاب صدقوه وحي أدول عن قلبي مركي وقفك وحمقله هدي أد قلبي ستابته وحد وشكتي ويلفري سنعيان ama macne iyo masaameyn bay u sameeyaan laakiin hadii dhagaha kale ku dhacaan waxa laga yaabaa inaysan qofku waxba fahmin practice-ka qofka laga raba inuu sameeyo ama waxa laga raba inuu qofku tijaabiyo oo isku dayo qof kasta oo raba inuu dad la hadlo ama cunugaaga la hadlo ama cid la hadlo waa 5 qaybood waay qaybta koowaad waxaan dhahnay qofka waa common ground-ka inaad ugu tagto meesha uu wax ku fahmi karo ama sida uu wax ku fahmi karo ama aragiisa meesha uu jooga ama aad kabihiisa la xirato number 2 waxaan dhahnay keep simple inaad simple uga dhigto wixii oo wax fudud oo uu fahmi karo uga dhigto number 3 on maanta ka hadli doono in aad samayso wax uu qofka enjoy gareyn kara ama experience uu enjoy gareyn karo oo wax ku fahmi karo inaad macno u samayso number 9 inspire inaad qofkii ku inspire garayso ama ku dhiirigeliso ama ku maaragtay hididgeliso inuu wax fahmo kan ugu dambaysa message-ka aad rabto dadka inaad u sheegto inaad adiga laftigaaga ku nooshahay oo aadan ahayn sheegaa aysan ka muuqanin waxa uu sheegayo maanta marka waxaan ka hadlaynaa experience-ga laga rabo inaad create garayso oo qofka laga rabo inuu enjoy garayo weligaa ay allaha meeting ma tagtay ama meeting ma aaday aad dareentay inuu meetingku ahaa ama cashirku ahaa boring ama wax aadan waxba ka fahmin ama markaad meeting tagayso walwalka kuugu badan ma aha meetingkan u socdo waa ku qasbanahay ama classkan u socdo waa ku qasbanahay laakiin teacherku ama macallinku ama hadluhu ama qofka lecture-ka dhiibay ciduu doona ha ahaadee waa boring waaye haddaba maxaa qofka boring ka dhigay waxaa ka dhigay inuusan dhagahaaga dhaafin asaga inuu isla hadlana uusan dhaafin adiga inaadan samaynin waxaad u baahan tahay marka inaad fahansan tahay inaad dhibka aad ku qabto qofkaas oo kale aan adiga lagugu qabin one of the lectureska dadka maaragtay lecture ka siiya dhibaa maalmaha ka mid a ducaysanaya asoo ducaysanaya waxaa aragtay cunugtiisa yarta waxay tiri maxaad u ducaysanaysaa wuxuu yiri maadaama aan lecture dhiibayo waxaan rabaa inuu ilaahay igu kaalmeeyo inuu ii fududeeyo waxay ku tiri in badan baan ku dhageysanayay maxaad maalin walba ducaysatay ilaahay ducada kaaga aqbali waaye oo ay dadku ma aragtay feel boring kugu dareemaan marka inaad observe garayso inay dadku kugu boring kugu dareemaan iyo in kale waa wax muhiim ah waaye oo aad u baahan tahay inaad ogaato inaad arintaas ka baxdo oo aad fahanto haddii marka aad rabto inaad la communicate garayso oo aad uga tagto dadka tilaabo positive ama wax tar ah ma noqon kartid qof noocaas oo kala ah oo dadka markuu la hadlaayo boring ah oo dadka markuu la hadlaayo ay ma aragtay ku seexdaan one of the sheikh culimada muslimiinta kamid oo dadka aan aad u dhageysta kamid ah la yiraahdo Sheikh Cabdirasaaq Xaashi masjidka Abu Bakr Sidiiq jooga waa maalin qodbadiisa wuxuu ka hadlay arin cajiib ah wuxuu yiri dadka muslimiinta ilaahay wuxuu ku faral yeelay in ay dhageystaan qodbada jamcaha laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala mas'uuliyadaas waxa laga rabaa in uu qofku fahmo speaker-ka ama qodbada jeedinaya laftigeeda yes dadkan faral ay ku tahay laakiin inuu faa'iido u dhaxgeliyo oo markaas wax aysan ku seexanin ama markaas noloshooda taabanaya ay sameeyso oo uu la kala communicate gareeyo waxyaabaha u fiican waxaan tagay in Egypt in Azhar one of the macallimiinta Azhar ka soo baxay maadaama taariikh dheer ay leedahay waxay caan ku yihiin
focal fluidity waxa la yiraahdaa codka qofka bini'aadanka inay aad u yaqaanaan waxay aad u sameeyaan oo Egyptianka ama waxyaabaha maaragtay qatar ay ku yihiin kamid ah in qofka codkiisa uu dheeraado dheeraado oo ay adag tahay qofna inuu naab ku qaato ama uu seexdo because they maaragtay kor bay u qaadeen haddaba saddexdan waxyaalood sida aad nooga barateen wax walba waxaan ku base garaynaa saddex waxyaalood si ay u fahanto oo ayna 20 iyo 10 u noqonin saddexdan waxyaalood waxay ku sahlaysaa aniga iyo adigaba inaan barano mid kastana tusaale saddexaan ka bixinayna si aad u fahanto marka saddexda waxyaalood aad u baahan tahay number 1 inaad fahanto waxa waaye in dadku interest ay noqdaan waa wax la barto waa inaad interest garayso dadka lecture-kooda ama dadku ay lecture-kaaga interest garayaan waa wax la barto saddex qaybood baan ka hadli doonaa marka la gaaro inaad dadka kala communicate garayso ama kala hadasho adduunka ama xaaladda ama cimilada marka ay ku jiraan waa wax muhiim oo iyadana saddex waxyaalood ka sharxi doona tan ugu dambaysa cidda aad la hadlayso inaad reactivate garayso ama ay activated yihiin oo ay kula socdaan waa wax speaker-ka ku xiran ama qofka hadlaaya ku xiran haddaba marka tan ugu horeysa saddexdeeda waxa waaye interestiga inaad barato number 1 waa in aad adigu responsibility qaato number 1 waa in aad adigu responsibility qaato waa inaad ogsoonaato waa aniga hadlaaya aniga dadkan inay waxaan aan fahansiyo responsible ka waxay micnaheedu tahay markaad mas'uuliyadda iyo qaadato inaad room temperature ka dareento inaad feel garayso ama aad ogaato cidda aan la hadlayo environment-ga aan kula hadlayo meesha aan kula hadlayo distraction-keeda maxaan u baahanahay aniga dadka maxaa naga dhaxeeyo oo noo dhaxeeyo oo na dhex taagan dadku ma arki karaan in badan dadku waxay dadka la hadlaan ayadoo qoortooda kaliya la arko aan dadna waxay la hadlaan sida hadda waagaan ugu dambaysa la sameeyo ayagoo lugeynaya and one of the khudbooyinkii jamcaha la soo dhaafay sheekh noo khudbeynayay maadaama aan lecture-kan ka qaato maaragtay dadka aad iyo aad ka cajiibka u aqaano waa observe gareeya ilaahay khayr ha siiyo wuxuu noo capture gareeyay ama noo qabtay jalaadii qodbahda si cajiiba this is wuxuu sameeyay oo rabaa inaan ku tuso intuu meel istaagay ama memberka istaagay muusan qodbeynin memberka markuu istaagay wuxuu dhaqaajiyay qoortiisa wuxuu hadlayay qof walbo anaga naga mida wuxuu indhihiisa siiyay qof walbo anaga naga mida that means qof uu ku ekaanayay ama ku hakanayna ma jiro qof walbo anaga naga mida marka uu na qabtay wuu ku fiirinayaa wuu ku arkayaa waxaad dareemaysaa marka inuu adiga kula hadlayo couple of seconds waa inaad dareensan tahay inaad adiga mas-uul ka tahay ciddaa doontaba lecture ama siyaasi ahow ama macallin ahow ama waarid ahow waa inaad adigu ogsoon tahay inaad dareensan tahay waxaa la yidhaahdaa haddii dadka ay seexdaan lala hadlayo waxaa loo baahan yahay in speaker-ka loo tago hurdada laga kiciyo haddii ummadda aad la hadlaysa ay seexato ama ay hurdo qabato micnaheeda ma ahan dadka waa adiga waay maxaa yeelay haddaad qofka fiiriso oo mar labaad fiiriso oo aad kor wax ugu sheegto oo aad example ugu sheegto ma dhacayso qofkii inuu seexdo waxaa dhacdaa dadka inta badan marka salaada jamcaha la yimaado oo kale khudbada hadda shacab saxaash uu ka hadlayo kale dadku naab bay qaadanayaan marka sheekhu dhaho in alxamdulilah bay bilaabayaan halla aqimka markay maqlaan ama maaragtay nabiga lagu salay sallallahu alayhi wasallamna qofku waa soo kacaya wax laga hadlay inuusan fahmin baa laga yaabaa laakiin mas'uuliyadda waxa laga rabaa qofka inuu fahmo oo dhaho aniga responsible macnaheedan horaan uga soo hadalnay muhiimadeeda ma aha inaad adigoo speech-ka u jeediso waxbaan daroob garaynaya hadduu Allah subxaanahu wa tacaala wax daroob garayn lahaa kitaabkana loo keeni lahaa the example-kana loo soo raaciyay oo dadka ugu khayrka badnaa ugu akhlaaq wanaagsanaa ugu fiicnaa baa laga rabaa in aad kabihiisa xirato mar allaala markaad cid wanaag u sheegayso it has nothing to do inaad masaajid ka qodbeynayso cunugaaga haddaad u sheegayso akhlaaqda ama wanaaga wax nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam ama nolosha ibni aadanka quseeyaad u sheegaysaa marka waa inaad raacisaa ama aad soo raacisaa nad waxa aad sheegayso remember this Allah subhanahu wa ta'ala hadalkiisii nabigu keenay laakiin example-kiisii ku daray oo sunnadiisii adigana dabcigaaga iyo dabeecadaada markaad speaker tahay aad iyo aad ay muhiim u tahay oo qofka laga rabo your responsibility ama my responsibility ujeedada ugu weyn waxa waaye inaan attention-ka aniga mas'uul ka ahay responsibility-gaas mas'uuliyadda aan qaato is number 1 number 2 communicate ama kala hadal dadka si aad need-kooda ugala hadasho ha ku hormarin waxa adiga rabto tusaale ahaan oo kale hadaan dadka inay adiga ku codeeyaan codkaaga ku hormarin siyaasiyiintu aad ay u yaqaanaan waxay bilaabaan inay ilmaha yarka kisiyaan haddaad aragtay waxay bilaabaan adoo weligaa ay allaha uusan imaanin oo maanta kaliya dadka cod ka rabo inuu dadka la hadlo waxay bilaabaan all this micnaheeda ma taqaanaa needka dadkay connect gareynayaan why because dadku waxay always daneeyaan qofka bilo aadanka oo baahidiisa
danaynaya dunad marka ha u malaynin in uu qofku bini'aadanka ah uusan baahi lahayn baahida qofku uu leeyahay aad la hadlayso cidoo doontaba hatee waa inaad kala hadashaa waxaa la yidhaahdaa iga hadal aniga iga hadal xumaantayda ma ku dhegaysanayo aniga ila hadal maybe inaan aniga ku dhegaysto aniga wanaagayga iyo waxtarkayga ka hadal dhagahaygaad haysanaysaa dadku micnahooda saas waay haddii qofka aad maaragtay ka hadlayso oo asaga xumaantiisa iyo wixiisa aad ka hadlayso inuusan ku maqlin baa laga yaaba laakiin haddaad wanaagiisa iyo ficnaantiisa iyo qofnimadiisa ka hadlayso muhiimadiisa laga yaaba marka number 1 waa inaad adigu mas-uuliyadda aad qaadan kartaa number 2 na waa inaad qofka niidkiisa kala hadashaa capture people in attention-kooda qofka bini'aadanka marka attention-kiisa baad ka garanaysaa haddii aad marka koobaad adigu mas-uuliyadda qaadatay niidkiisa kala hadashay waxaa kuu sahlanaanaysa in aad qabato qofka bini'aadanka ah maaragtay dhagihiisii aad qabato ama aad soo jeediso markaad qofka marka dhagihiisii qabato aad soo jeediso qofka waxaa u furmaaya ama u sahlanaanaya inuu ku dhagaysto ama uu dhagihii kuu furo why because dadku daqiiqada ugu horeysa ama labada daqiiqo ugu horeysa oo qofka aad la hadlayso baa ugu muhiimsan hadalka waa marka qofka uu check out samaynayo dadka inta ugu badan markii salaada la fariisto ama speech la fariisto naab qaataan waxay naab qaataan evaluation-kooda ugu horeeya markay dhameeyaan markuusan markaartay speakerka ama qofka dadka la hadlaya uusan mas-uuliyadda qaadan baahidooda uusan ka hadlin ma uusan capture garaynin andaas marka ay ka baxayaan oo ay suurtagal u noqoyso inuu ka baxo qofka maskaxdii waxaa la yidhaahdaa nowadays dadku waxaa maskaxdoodu ay tahay sida remote-ka ama maaragtay connection-ko kale waa haddii aadan connect garaynin ama qofka aadan qabanin easily qofkii wuxuu ka baxayaa ama maskaxdu ka baxaya oo ka tagaya qaybta labaad communication into their world inaad qofka ka hadasho ama kala hadasho adduunka ama xaaladda ama xayiga meesha ay ku jiraan waxaad activate garaynaysaa number 1 needkii aan ka soo hadalnay sidaad xal ugu heli lahayd ama dhibaatadii aad ka hadashay inaad xad u hesho baad ka hadlaysaa waxa ugu horeysa marka oo qofka needkiisa inaad fahansan tahay cadaynaya in aad weydiiso ama kala hadasho ama aad ku naqtigarayso inaad su'aal qusaysa niidka qofka aad weydiiso dhahdo dhibaatada noocaas oo kale ah maxaa lagu xalin karaa maxaa lagu xan karaa muhiimadda qofka question-ka aad weydiinaysa marka stage-ka saaran tahay in inta qofka su'aal weydiiso uu ku jawaabo ma waxaan ogsoonahay inaad dhibaatadaas qabno qof kastoo anaga naga midana waxaan hubaa inuu xal u baahan yahay inuu helo waxaan rajaynayaa inaan maanta xalkeeda ka hadalno oromaarila qofkii waxaad la raadinaysaa ama u sheegaysaa inaad xal kala hadasho wax number 2 waxaad u samaysaa in yar oo uu fahmi karo qofkii oo maskaxdiisa ay ku hakato oo u samaynaya xasuus uu ku xasuusto inaad niidkiisa xal u raadinayso macnaheedana ay tahay waxyaabaha la xasuusto waxaa ka mid ah speakerska maraykanka caanka ka ama adduunka caanka ka eraya yaryar baa lagu xasuustaa obama erayaa lagu xasuustaa mother luther king erayaa lagu xasuustaa kennedy erayaa lagu xasuustaa all those people erayaa lagu xasuustaa mother luther king waxaa lagu xasuustaa I have a dream oo macnaheedu waxay tahay dreamkayga baad ku jirtaa inaad xornimadeeda hesho niidkaagii ama dhibaatadaadii baan ka hadlay message-na waa u sameeyay yar oo aad ku xasuusanayso waxa ay tahay iyo waxa ay samaynayso iyo waxa nooceeda ay noqonayso if you want marka people inay xasuustaan arintaas ayada ah waa inaad in yar kaga dhahdaa oo xasuusinaysa ama aad example u samaysaa qofkii shaagaraynaya inaad fahansan tahay sida message-kiisa ugu daro kale tusaale ahaan oo kale waxaan rabtaa inaad kala hadasho dadka poverty-ga ama dhibaatada maanta adduunka haysata waxaad leedahay research-ku ama cilmi baariddu waxay tusaysaa every 7 qofood oo maanta adduunka ku nool ama 6 qofood oo maanta adduunka ku nool qof ka mid ah wuxuu la seexdaa ama la ildaran yahay baahi buu la ildaran yahay 7 qofood ama 6 qofood oo maanta adduunka joogta wuxuu la ildaran yahay baahi research-kan hadda aan fiirinayo ama hawshan waa 16 sano ka hor maanta inay ka darantaa laga yaabaa laakiin ogow 3 qofood oo maanta adduunkan ku nool only 3 qofood baa waxay ka dhaqaale badan yihiin 48 wadan ee wadamada adduunka ugu faqrisana waa wax aad loola yaabo waxaan cadaalad ahayn waa marka aad ka fiiriso ability-ga qofka bini'aadanka meesha 7 qofood qof gaajo uu la seexanayo 3 qofoodna ay ka dhaqaale badan tahay 48 wadan ee adduunka ugu faqrisan waa dhibaato waxay tusaysaa marka waxyaabo maaragtay maskaxdooda xasuusin kara ama ku reebi kara sida uu ugu reebay ninkaas oo kale inuu sameeyo number 2 marka dadka la hadlayso waa inaad ogsoon tahay waaye waa dialogue waaye monologue ma dialogue macnaheedu waan kula hadlayaa midna ana iska hadlaya ama ana maaragtay kaligay hadlayo nafteyda ka hadlaya ma aha
markaad qofka niidkiisa ka hadlayso waa inaad ogsoon tahay waay niidku waxay u baahan tahay wada hadal iyo laba qofood oo hadal dhex mara. number 3 oo qaybtan ah communicate into their world waxa weeye waa inaad tusi kartaa qofka picture. halka pictures wuxuu la qiimo yahay 1000 words buu la qiimo yahay. waa inaad adaad project isticmaalaysa ama wax isticmaalayso qofka aad tusi kartaa ama image-ka aad tusi kartaa waxa aad ka hadlayso iyo dhibaatada ay leeyihiin iyo waxa uu qofku u samayn karo oo ay micnaha u samaynayso. activate your audience marka. number 3 set marka ku activate garaynaysaa audience-gaaga ama audience-gaaga ay ku noqonayaan kuwa active ah oo intii aad sheegtay markaad kala hadasho niidkoodii kala hadasho xilmilada ay ku jiraan aad kala hadasho see ku activate garaynaysaa ama ku taabanaysaa inay kula socdaan. number 1 waxa ugu fiican oo dadka lagu activate gareeyo waa inaad sheeko taabanaysa ama sheeko taabanaysa ama similar leh sheekada ama dhibaatada ay ku jiraan oo kala aad u sheegto ama ka daran midda ay soo mareen. markaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa eegto waxaad arkaysaa qisooyin fara badan oo Allah subxaanahu wa ta'ala nooga sheekeynayo ama nabi ilaahay maxamed sallallahu alayhi wasallam uga sheekeynayo ama loogu calalo adkeenayo. waxaad dareemaysaa marka sheekadu micnaha ay leedahay inay tahay scenario-dan aad ku jirto adiga kaliya kumaada jirin. markii nabi ilaahay maxamed sallallahu alayhi wasallam dadka qaarkood ay cabteen oo dhibaatooyin aad u fara badan oo loo geystay ay ka cabdeen waa tuu uga sheekeeyay waay dadku maqaarka laga siibayay hilibka iyo lafta la kala siibayay waxayna ku dheganaayeen diintood siduu nabigu ugu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa aad haysato ama waxa aad haysataan ama diintiinu way ka qiimo badan tahay xanuunka in loo dulqaatana muhiima. all great communication sidaasay sameeyaan waxay sameeyaan always waxay ka hadlaan in ay sameeyaan oo ka hadlaan taariikh ama history dhacday si loo sameeyo similarity ama wax la mida ama ka adag. waxaa la yiraahdaa madaxweynaha Mareykanka ugu fiicnaa ninka la yiraahdo Abraham Lincoln wuxuu caan ku ahaa in uu wax walba soo tuso ama ka tusaaleeyo qiso inuu ka tusaaleeyo oo qisada ay ka aragto. maxay lahayd dadka arabta inay enthusiasm dareemaan ama farxad dareemaan qisada aad samayso ama similarity aad la samayso sidoo kale emanation qofkii inuu arki karo picture-kii ama saameyntii arki karto waxay ku sameynaysaa inaad aragto hawshadas ayada. haddaan marka soo gaabiyo chapter-kan aan ugu talagalnay ama dadka jecel in loo gaabiyo aan ku soo gaabiyo oo la yiraahdo inay dadku connectorsku waxay experience u leeyihiin inay enjoy inay dadka ay ma aragtay ku farxaan waxa ay ka hadlayaan oo aysan boring dareemin. number 1 waa inaad ogsoon tahay midda ugu muhiimsan cidda aad la hadlayso adiga ayaa mas'uulka ah inaad connect garayso oo aad qabato qalbigooda. haddii aadan qofka qalbigiisa qabanin qofku kuma raacayo waxaad ku qabanaysa qofka qalbigiisa. number 1 inaad adiga mas'uuliyadda qaadato. number 2 communicate ama kala hadal dadka adduunka ay joogaan. ha kala hadlin adduun aysan joogin xataa haddaad kala hadasho siiradii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo taariikhda la joogay iyo waqtigaas ayada similarity-ga maanta waa inaad soo hoobiso. waxaad arkaysaa qof kaaga sheekeynaya waqti dheer kaaga sheekeynaya laakiin aanan ku connect garaynin maanta message-kan u leedahay because waqtigaas dheer buu ku nool yahay waxaa laga yaabaa inuu kugu lumiyo waqtiga dheeraa laakiin qofka waxaa la rabaa waqtigan maanta la joogayo waqtigaas as an speaker inaad iskugu xirto dhahdo waxaan waa wax dhacay oo la soo maray sida loo soo marayna saasay ahayd sida annaga aan uga bixi karnana maanta waa sidaan iyo sidaas. and number 3 inaad activate garayso oo dadka ku activate garayso needkooda iyo dhibaatadooda iyo ximiladooda iyo dhibka ay ku jiraan inay uga bixi karaan ama arki karaan rajadu inay dhowdahay ama ay wanaagsan tahay sida aan ka soo hadalay ninkii ma aragtay la oran jiray and I have a dream speech ka iska lahayo Martin Luther King oo u tusay dadku inuu buur koraayo oo uu buurta arko rajadii oo ay dadkiisu la soo kori doonaan oo laga yaabo inuusan asagu waqtigaas nooleen laakiin u rajeeray. and that waxa laga rabo qofka inaad ku activate garayso image-ka ama aragtida qalbi ahaaneed adigoo tusaya rajadu inay dhowdahay waxa aad kala hadlaysana raadkeedu Allah hayo meesha loo socdana ay dhowdahay awrtana la furi doono haddii Ilaahay yiraahdo wanaagna uu ka dambeyn doono dhibka haddii Rabbi raali ka dhigo. aad baan idin salaamaya.